waxaan rabaa bal inaan maskaxdayda si dhaqsaa uga yara shaqaysiyo xusuusto dulmiga bal wixii aan goobjoog ka ahaa anigu oon layga sheekayn oo dulmiga ku saabsan maalin maalmaha ka mida salaad subax anigoo masaajid ku tukaday oo fadhiya abaara markay ahayd 6dii baa nin noo yimi ama waxbaa dhinaa daqiiqado markaasuu wuxuu yidhi ragaan badnayn baanu markaa masaajidka dhexdiisa ku fadhinaa aan isleeyahay 10 waa ka yartihiin oo teel baan u fadhinaa masaajidka ninba dantiisu u fadhiyaa dabeetana ninkii wuxuu naga codsaday qof dumara oo ka xanuunsanaysa oo ooridiisa oo aqalka joogta inaanu adkaar iyo quraan ugu soo akhrino aad buu noogu celceliyey war xilligan waa xilligii la kala shaqo tegi lahaa shuruuqii baa la sugayaa waqti waa nagu adag yahay markuu nagu ilxaaxiyey waa iska aqbalna waa tagnay aqalkii baanu tagnay waa guri nusbalooda 3 maqsin iyo suuliye kitchen iyo waxaa ka kooban kadinka markaanu ka galnay isagaa naga horreeyey dibaddaan yara istaagnay wuxuu yidhi soo gudba dabeetana waa aqalkii 3dii maqsinkii u horreeyey ee bidixda sidaasay u safan yihiin ayuu yidhi kan soo gala markaasaanu gallay qolka dhexdiisa waxba ma yaallaan wax gogola waxba ma yaallaan laakiin qof dumara baa waxay kada loobtaayoo fadhidaa raarta ama sabarka u dambeeya qolka dee gidaarka kada loobtaayoo sidaa u fadhidaa markaasa waxaan ku yidhi bal daaqadda yara furo si wax loo arko daaqaddii buu furay waa soo galnay qof dumara waxay fadhidaa aqalka halka u dambaysa gidaarka bay kada loobtaayoo dhabarkay ku haysaa gidaarka markaasuu war qofta waa xaaskaygii waxaan doonayaa inaad niman yahow bal qur-aan ku akhrisaan waxba waa ka garan waayey arrinkeeda ilaa xalay xaalkeedu ma wacnayn dabeeta waxaan ku nidhi bal ag fadhiiso oo maryahana u hagaajiyo dee haddii ay lacalla bal dhaqdhaqaaqdo wax iska beddelaan u diyaar garow ile adiga ooridaadii tahay inaad si wacan u qabato annagu qaban kari mayne qur-aankii baanu ku bilownay waa ku akhrinay waxoogaa markaanu ku akhrinaynay bay waxay bilowday inay sida bisadda u ciido gabadhii yaw bisad ciyaysa weligaa ma aragtay annagii baa yaabnay qur-aan ku akhrinaynay qur-aankii baanu joojinay waxaan isni bal hubsada horta gabadhan aad qur-aanka ku akhrinaysaan baa sida bisadda u ciyaysa mise bisad baa qolka ku jirta horta waa ku celinay mise sida bisadday u ciyaysaa gabadha qur-aankii baanu ku wadnay ku akhrinay waxay sida bisadda u cidaba oo sidaas marba tidhaahdo sidaa marba tidhaahdo markii dambe caadi bay iska noqotay markay xoogaa kala degtay baan su-aal weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa ku helay xaggee lagaa hayaa sidee tahay waxay tidhi shalay salaaddii duhur ka hor anigoo qadadii reerka u karinaya ayaa halkan waxaa ii saarnaa dheri biyo ah oo aan islahaa aad baasta ku karisid dabeetana anigoo suugadii iyo wixii aan samayn lahaa cadkii jarjaraya ayaa bisadii kadinka ka soo gashay albaabkoo furan dabeetana cadkii yaraayaan islaad qadada ku karisid bay la boodday biyihii baylka ahaa ee baastada aan u diyaariyey ayaa intaan darsaday koob baan ka daba ordayoo kadinkaan ku gaaro waa ku shubay halkaasay ku kogtay bisaddii oo naftii kaga baxday markaasaan intii koobka ku hadhsanaydna u raaciyey bay tiri iyadoo caqdaa leh markay sidaa u kogtay bisaddii bislaatayna waa tuuray bay tiri markaan ka soo noqday ayaa xanuunkaasi igalay bay tiri ilaa iyo xaalkayguma wacnayn wakhtigaa laga bilaabo ilaa iyo wakhtigaa arrintaasi waxay tusinaysaa qaybihii dulmiga ee muxaadarada ku jiray ظلم العبد للحيوان qofku inuu xayawaanka dulmiyo khatarta ay leedahay
waa sidii nebiga sal allahu alayh wasalam habeenkii maalintii cadceeddu madoobaatay isagoo salaaddii tukinaya dibna u soo gurtay tallaabooyin mixraabka isagoo taagan horena marka qaarkood uu u tallaabsaday oo uu yidhi naartaa maanta lay tusay weli waxa aan ku arkay wax la mida ma arag sidaasaan dib ugu soo gurtay jannadana waa la i tusay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku arkay naarta gudaheeda qof dumar oo naarta gudaheeda lagu cadaabayo oo ay bisadi cunayso bisadaasoo ay sababteedii ahayd inay xidhay oo biyo iyo baadna aanay siin dabeetana ay xarigii ku baktiday bisadiioo cunaysaan arkay buu yidhi sababtii bisadaasaana lagu cadaabay sidaas marka waxay tusinaysaa in nooc khatara tahay dulmiga xayawaanka la dulmiyo waxaan kaloo anigu goobjoog u ahaa nin askarta ku jira iminka waa dhintay allah u naxariisto wuxuu ku jira qaybaha dembi baarista iyo CID-da nin xoog weynna uu ahaa marka qof la soo qabtoo la keeno dadka kabaha buurhku ku laadi jiray meel alla meeshii uu doono kaga dhufan jiray laadka rag iyo dumarba waa laadaya markaasuu dadka aad u laadi jiray habeenkii dambuu seexday qolo gaadhi ka degtay oo sadcaal dheerna soo gasho aad u daalan ayaa goor galaba laga rogay gaadhigii markaasaa loo tegayo waa lala hadlay war dadkan iska sii daayo baadna waa ka qaadaa dadka waana laaya dadkiibuu marka laad nin odaya buu si xun u laaday markaasuu dhirbaaxana ugu daray odaygii baa dhacay markaasuu odaygii mantagay habeenkii ku laba ahaa buu seexday lugta midig faryarada iyo farta ku xigta dhexdooda fin yar baa ka soo baxay finkii odaygii baa marka wuxuu yidhi iska daaya ilaahay waxaan ka baryayaa lugtaa uu igu laaday ilaahay inaanu mar dambe dib ugu tallaabsan baan ka baryayaa ninkii waxaa dhacday fin yar baa ka soo baxay labada farood dhexdooda waa fin ilaahay wato lugtii baa waxay la ekaatay wuxuun ilaahay xaalkeeda ogyahay jiif iyo joogba waa ka tegey lugtii waxaa la jaray dhudhunka xagga canqowga ka sarraysaa laga jaray xanuunkii waa joogi waayey waxaa laga jaray lowga agtiisa waa joogi waaye xanuunkii markii saddexaad baa halkaa misigta iyo lugtuu iska galaan misigtii oo dhan baa la saaray lugtii oo dhan baa la saaray gebigeediiba markuu ladnaaday oo intaa ilaahay ugu joojiyey ayuu dee bire iyo waxbuu qaadan jiray oo wuxuu bilaabay inuu birihiina qofka uu afgaran waaye la dhaco cishadii dambe labadii keliyoodna fadhiisteen isagoo dhakhtar loo wadaa naftu ka baxday dulmigoo caaqibadiisu wax sahlan ma aha haddii laga warramo wixii anigu aan ogaa oo arkay keliya haddaan ka sheekeeyo wax sahlan ma aha waxaa dhacday qof dumara ayaa inanay aayo u tahay oo aqalkeeda joogtay ayaa waxay ahayd gabadh aad u fahmad badan aqoonta madaxbarashada diiniga iyo maadiga aad u cajo badan ubadkii ay inantu la walaalka ahayd inanta yaree rajada ah rajay ahayd rajo ninkaa dhalay iyadaa ka fahmad iyo aqoon badan islaantii inanta haysay inanta yareed bay la cilowday ee hooyada u ahayd shaqooyinka ugu daran iyo tacabka ugu daran bay u dirtaa waxay noqotay in jaa-isooyinka iyo waxa ugu fiican la siiyo inantan waxbarashooyinka ay si fiican ugu baasto islaantii waxay la cilowday inantii dabeetana iyadaa ka sheekaynaysa anigu afkeeda iiga sheekaysay waxaan ku talagalay bay tiri talow sun ma siisaa mar waxaan isiri bay tiri ma gubtaa iyadoo huruda marba waxbaan ku fekeray bay tiri waxay tiri cishadii dambe waxaan isidhi si yaroo farsamaysan u gub oon la fahmin dabeetana waxay tidhi aqalkaanu ka shaqaynaynaa baan nidhi takfi baa guriga gashay waxaan soomaalidu takfi iyo kutaantay waxay yidhaahdaan biyaynu karinaynaa baanu nidhi biyaa dabki la saaray dabeetana waanu soo qaadnay
aqalkaanu ku saydhsaydhayna waa intaan dee dawadan iyo waxaan lagu buufiyey malaha aada loo baran kaalay bay tiri igula saydhsaydh aqalka markii ay dherigii ama shaygii biyuhu ku jireen ayaan wada qaadnay bay tiri la qaad ku idhi markii aan dhulka dhignay ayaan ku sii daayay bay tiri intaa dhumada ah iyo cagay ka gubatay gabadhii dabeetana si arrintu u saamayso baan waxaan sameeyey markiiba mara yaroo halkan ii saarnayd bay tiri baan alla inantii gubatayoo waa ku sii mudxiye bay tiri dabeetana markiiba adigu inantii aad bay labada cagood uga gubatay oo farihii baa soo yaro kogayoo dee anna waa ku talagalo waa mudxinayaa bay tiri dhakhtarkaa la geeyey gabadh inantii waa la dhayey mudday jiiftay adigu iska ladnaatay laakiin farihii way yaro kogeenoo saasay yaro noqdeen qalliin dambe hawlay u baahdeen waxay tidhi inantii 6 bilood baa ka soo wareegtay maantii dambaan umulay dabeetana waxaa la dhigay reerkii neef walqalaa la sameeyey walqashii baa la bislaynayaa oo la karinayaa 2 neef baa guriga lagu qalay adeegii iyo hablaha ka shaqaynaya aniguna waxaan kula jiraa shaqadan wax kala qabanaya waxay tidhi dheri halkanoo hilibkii ku bislaanayo iyo fuudkii sidaa u karaya unbaan jikada intaan galay bay tiri soo baxay siri intaan wax soo qaatay toobkii aan xidhnaa bay tiri meel u ka daloolay garan maaye meel unbaa dhegtii qabsatay dheriga saa unbaan u jeestay bay tiri dherigii oo dhan baa saa igu yimi laga bilaabo gumaarka ilaa intaa baan bislaaday bay tiri 3 sannadood waxay u tiri kharashka igu baxay dabkayga jaga aan lahaa waan iibiyey $12,000 baan siiyey meelo badan oo deegaanka wadamada nagu dhow baa la igeeyey bay tiri dee inantii iska ladnaatoo guursatay iyadii iminka 2 bilood bay ku socotaa waa bislaatay dhaawacima baa gaadhay 2dii xaglood seedihii baa gubtay laguma soo laabmayaan markay soconayso bahalladan taayirada le bay ku socotaayoo saasay ugu soconaysaa ila qofku ma tallaabsan karo xaglihii seedihii baa gubtay marka meel baanu ku kulanno markaasay iiga sheekaysay sababta arrintaasi u gaadhay dhakhtar ka baxsan waddanka maraan tegey baanu ku kulannay annagoo meel fadhinaan iswaraysanay waxay leedahay khatarta ay leedahay weeyaan khatarta ay leedahay dulmiga ama uu leeyahay dadka la dulminayo wax fara badan saxaabada waqtigoodii waa garanaysaan qoftii dumar ahayd ee ninkii saciid ahaa ee 10kii jannada loogu bushaareeyey ka midka ahaa ee islaantu dhulka ay ku qabsatay ee ashtakayseeyay dhulkan anaa iska leh oo amiirulmu'miniinkii la isula tegey markaasuu wuxuu yidhi anigu rasuulka ilaahay anigoo ka maqlay qofkii taaka dhula qaata cunaha loogu duubayaa maalinta aakhiro 7 dhul iyadoo la eg miyaan arrinkaas samaynaya golihii markii in lagu kala tago la damcay buu yidhi joog ha tegin ilaahay buu bariyey ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inuu cimrigeedana dheereeyo indhahana ilaahay tiro dhulkaa ay sheegaysana ilaahay ku dilo waxay odhan jirtay iyadoo indhala siday maalintii dambe iyadoo hagabsanaysa ceel beertii ku yaalla bay ku dhimatay oo ku dhacday halkaasay dam ku tiri dulmigu waa fara badan yahay waqtigan la joogo waxaa ka mid a dadka dhulkooda sida kelmaddaba ku jirtay lagu habsanayo oo la qabsanayo waxaa ka mid a dulmiga guryaha ka dhacaya ayaa ka mid a ninku inuu reerkiisa dulmiyo ama iyadu dulmiso ama caruuraha aqalada jooga ee labada qof ee qoyska midun ka soo jeeda ee la keeno la dulmiyo waxaa ka mid a jiiraanka la dulmiyo waxaa ka mid a shaarka dowladda oo la isu adeegsado oo dadkii lagu dhibaateeyo qofkii isagoo mas-uula baawarkiisa wax ku dhibaateeyo meelo badan buu gelayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dulmiga iyo daalimiinta labadaba ina ka ilaaliyo aan naga dhigin qur-aanka ilaa 200 oo mawdic siyaabo kala duwan buu ilaahay dulmiga uga hadlay siyaaq kala duwanna iyagoo ku yimi ilaahay waxaan ka baryaynaa sheekhan inuu kelmadda ka abaalmariyo dulmigana ilaahay ina ka ilaaliyo inaha un baan dhihi lahaa astawdiicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'ica